sanadii 2 bilood kadib. Waa markii labaad ee aan u jeedo degmada Balcad oo ka tirsan Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya. Waxay ku dhawaad 36 ilaa 37 kiiloomitir u jirtaa Muqdisho. Intii aan ku sii socday wadadan dheer ee isku xirta Muqdisho iyo Balcad, waxaa dhex noogu qabsaday roob oo aan gaarsiisanayn magaalada Balcad. Markii aan wax yar dhaafnay Ex Control Balcad, isla markaana aan ku sii socono Maslax, ayuu roobkani yimid. Dhismaha wadadani ayaa dadka degmada iyo kuwa soo booqanayo oo aan aniguba ka mid ahay u fududeeyay inay waqti yar ku tagaan magaaladan. Dhabaqa roobka, udgoonka dabeesha, quruxda laamiga iyo daqiiqadaha yar ee uu gaarigu soconayo ayaa ii horseedaya inaan marar badan ku soo laabto Balcad. Darmoole, Caliyaale, Garas Bintow, Carafaag, Hareeri Madoowe, Hareeri Caad, Hiilweyne waa tuulooyin hoos taga Balcad. Intii aan wadada ku sii jirnay ayaan dhammaantood marnay. 56,000 oo shilin Soomaali ah oo u dhigmata $2 ayaa qofkiiba lagu geeyaa Balcad. Wax ka yar 30 daqiiqo kadib waxaan soo gaarnay magaalada Balcad. Halkan iga dambayso waa biyaha webiga Shabeelle ee Soomaaliya. Webigan waxa uu ka soo galaa gobolka Hiiraan. Waxa uuna biyahani u qeybiyaa labada Shabeelle, Shabeellada Dhexe iyo weliba Shabeellada Hoose. Qaybtan hadda iga dambayso waa biyo xireenka magaalada Balcad. Biyo xireenkani waxa uu biyaha u wadaa magaalada Afgooye. iminka waxaa saaranahay dusha sare biyo xireenka magaalada Balcad. Biyo xireenka waxaa lagu dhisay iskaashi saaxiibtinimo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kuuriya. Sanadku markuu ahaa 1980 21 bisha Oktoobar. Beeraha ku hareeraysan webiga waa beero isugu jira noocyada kala gedisan ee qudaarta iyo weliba dalagga dalkeena hooyo. Marka loo eego dalxiisayaasha halka yimaada, guud ahaan beerahani waxa ay ka isticmaalaan ama ay ka cunaan qudaarta iyagoo aan wax lacag laga rabin, laakiinse ogolaansho buuxda ka qaadanayo ama la siinayo ama ay siinayaan dadka beertan iska leh. Sidoo kale dadka dalxiisayaasha ah looma ogolo in ay qudaarta si bilaash ah ku qaataan oo ay guryahooda la aadaan, marka laga soo tago in ay ku cuni karaan ama ay ku dhex isticmaali karaan beerta gudaheeda. Maalmaha fasaxa shaqooyinka iyo weliba goobaha waxbarashada waxaa biyo xireenkani yimaado dhalinyaro aad u fara badan oo iyagu halkan ku damaashaado isla markaana waqti ku qaato. dhalinyarada halkan yimaado ayaa intooda badan sawiro ku galo, halka qaarkoodna ay ku duubtaan muuqaalo si ay ugu baahiyaan baraha bulshada ee sida gaarka u leeyihiin. Kaafi Sheekh Xuseen, Hargal TV, biyo xireenka magaalada Balcad.